بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu muhiim maahan waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo aad ay u dhibtay marxaladda ka taagan maanta dalkeena Soomaaliya. waxaan baaq u dirayaa, waxaan la hadlayaa, waxaan runta u sheegayaa golaha shacbiyadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay mudanayaal, waxaa jirta nolosha aad ku jirtaan nolol ka degan oo aad ku heli kartaan maal iyo magac iyo mansab intaba. waa nolosha deganaanshaha leh, waa nolosha cadaaladda leh, waa nolosha isku xukunka kitaabka quraanka leh. haddaad ka ilduftaan xaqa, haddaad ka ilduftaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dastuurka uu u soo dejiyay adduunkan, waxaad ku luguyi doontaan, waxaad isku fahmi waayi doontaan sharciga iyo dastuurka idinku aad dhigateen oo aadana ah. dhibaatada maanta dalkeena ka taagan ma aha midii ku habboonayd. maanta inaad isqabsataan maysan ahayn. maanta waxaad ku jirteen xaalad adag, waxaad dagaal kula jirteen Itoobiyaan iyo Carab, waxaad dagaal kula jirteen cadawga Soomaaliya. maanta inaad isqabsataan, maanta idinku inaad isku mashquushaan, maanta idinku inaad islu geysaan ma aysan ahayn. maanta haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed, haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed, waxaad muddo 30 sano ah aad wadeen musalsal aan dhamaad lahayn, kaas oo mar walbaaba qof u ka noqonaya toore. ma noqon doonto. waxaanu sii qaadan doonaa xaaladda dalkayga taagan. waanu qaxnay, waanu orodnay, waanu rafaadnay. dalkaygii ayaa halis ku jira oo u sii dhow xilligii la dhaxli lahaa. maanta waxaad ku jirtaan marxaladdii ugu adkayd. maanta waxay ahayd inaad idinku isgarabsataan. maanta waxay ahayd inaad garbaha isqabsataan. war meeshan adeeraad ku dagaalamaysaan, war meeshan aad dabeecadihiina iyo xifaaltanka iyo xoogga aad ku wadaan, war meeshan waa masiir umadeed, war waa nolol umadeed, war waxaad ku matalaysaan dad masaakiina, war waxaad ku matalaysaan dal dayacan, war waxaad ku matalaysaan hooyooyin ku hoos jira buush hoostood, war waxaan aad dabeecadiina ku xukumaysaan waa rajo qaran. haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed, in badan ayaan idin daawanaynay, in badan ayaan idin dhageysanaynay. walaalayaaloo nama qabato tan. waxaan jecelnahay inaad naga bedeshaan oo aad noo doortaan nolol tan ka qurux badan. waxaanu nahay awlaad ku dhalatay burbur, waxaanu nahay awlaad ku barbaartay burbur, waxaanu nahay awlaad wax ku baratay burbur, waxaanu nahay awlaad qaxday, waxaanu nahay dad tahriibay oo badaha ku daatay, waxaanu nahay kuwo qurbaha lagu dhibaateeyey oo qurbaha ku nool oo dalkooda ka firdhaday. maanta markii ubax soo baxay, maanta markii rajo soo baxday, maanta markii ay soo muuqatay iftiinkii Soomaaliya, maanta markaynu helnay cadceed yar oo ina diidaysa, miyaynu maanta isqabsanaynaa? miyaynu maanta golihii aynu isku matalayna ku dagaalamaynaa? miyaynu ka oldufnay xaqa? miyaynu fahmi weynay nolosha dhabta ee jirta? war miyaynaan odhanaynin tani nama qabato? war haddaad tihiin dad xaqa oo cadaalad ku taagan, 30 sano ayaad dagaalamayseen, 30 sano ayaad dhiig daadinayseen, 30 sano ayaad qax nagu hayseen iyo dhibaato. war xagee ayay hawsha iska qabsan laadahay? war maanta waxaa loo baahnaa inaad cadowgiina garbaha isu qabsataan. war maanta Soomaaliya meel kasta ayaa laga soo weerarayaa. maanta ma aysan hayn maalin aad idinku isqabsataan. maanta ma aysan hayn maalin aad idinku xifaaltantaan. maanta ma aysan hayn maalin aad dabeecadihiina ku dagaalantaan. maanta ma aysan hayn maalin aad hoggaanka ku dagaalantaan. maanta waa maalintaad isdifaaci lahaydeen. maanta waa maalintaad baddiina difaaci lahaydeen. maanta waa maalinta aad rajada qarankiina badbaadin lahaydeen. maanta waa maalintaadna badbaadin lahaydeen annaga. waa maalintaad rajadeeda dhowri lahaydeen. ma aha maalintaad qoryaha isku qaadan lahaydeen. ma aha maalintaad idinku isqabsan lahaydeen. ma aha maalintaad isdhibaatayn lahaydeen. maanta waa maalintii difaaca dalka. maanta waa maalintii qarannimada. maanta waa maalintii halganka. waxaan baaq u dirayaa, waxaan la hadlayaa, waxaan baryayaa dhammaan golaha baarlamaanka. waxaa jirta nolol aad ku helaysaan lacag, waxaa jirta nolol aad ku helaysaan amni, waxaa jirta nolol aad janno adduuniya janno aakhiraba ku helaysaan. nolosha aad ku jirtaan ma aha tan aad hadda ku jirtaan. dalkiina waxaa ku jira khayraad aad u tiro badan. haddaad la soo baxdaan oo sida ugu habbooneed u isticmaashaana, inaad idinku lacag heshaan iska dhaafi caalamka ayaad quudin kartaan. nolol cadaalad ayaa jirta. haddaad cadaalad ku dhaqantaan, cadaalad ayaad helaysaan. haddaad dadka aad matalaysaan u hagar baxdaan oo aad u dadaashaan, nabad iyo amni ayaad helaysaan. dastuurka xaqa ah nagu dhaqa. dastuurku waa ka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey. war wallaahi
weligii hawl isku kan qaban mayso inta aad dastuur idinku aad gacmihiina ku samaysateen aad dadka iyo dalku xukumaysaan inta aad idinka khaldamaya iskuma fahmaysaan sababtaasina waa sababta ah الله سبحانه وتعالى أدونك وحو أصو صاري دستور إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحو أصو صاري نلو إيا دقناشو نلوشا إيا دقناشاها قوم كي بالمرا هوب إيا هلاقا يكسوق نادان أنه ما أنت أودو ملهين إنا ندينك إذن حكونا ما نتشوق ماشا سومالي لو حكونا ما تشوقنا بس إذن كاتشوقا واحد هيستان فرصد إلهي إذن أبورتك بقى بالآذن كو عدالة سمية صدر سنة أيان رباتي سنين ما أنت أيان مدح الله سوك عني ما أنت أيان مبرنا إنا نهض الله أونرانا وروحا ما قادن كرنا ما أنت أيان الصومالي قربها يسقبسطو maanta ayay dil iyo dabadina iska taageerno maanta maysan ahayn inaan dabiicadaheena isku xukunno maanta maysan ahayn rabitaankeena inaan isku xukunno maanta waxay ahayd inaanu dastuurka Allah subhanahu wa ta'ala qabsano ciideena dalkeena iyo diinteena aan difaacano maanta waa maalintii xaqiiqda maanta waa maalintii jiritaanka ma aha maalintii isqabsiga ma aha maalintii lugooyada war cadawgeena ayaa kor inaga daawanaya cadow ayaan leenahay haddaad qorsheynaysid hebel inaad qadka ka saartid haddaad qorsheynaysid inaad lacag qaadatid haddaad qorsheynaysid إن الله يرى استراحة تكون ولاتد عدو قاقوح وقرشين يا بقصنا صدق ودحلي لها حريرها قايو تاغي هي بدا هذا يو كرسارين هي عيد هذا يو كبوحا waxaa jira intaas oo kun oo halaq oo dhulkeena dhex jooga waxay ahayd maanta inaan difaacno aanu niraano waxaan ma qaadan karno waxaanu nahay dad Soomaali ah oo aan aqbali karin dareenkaas isaga waxaan idin ka codsanayaa waxaan idin rajaynayaa nolol deganaansho ah Allah subhanahu wa ta'ala xaqaha idin waafajiyo Allah subhanahu wa ta'ala ha idin ku badbaadiyo مسرحة أذكر سكنتين هذه كوبد باديو الله سبحانه وتعالى ما أنت وحن كرجينا صوماليين وأهيليو وإلى حق أهيليو ما أنت قف كست أو صومالية وحلو جبه هي إنه دور كي سقاطه ما أنت قف كست صومالي أمحلها هي أموجيوسن هاي واجبات كدل كان وجودي هاي تلكين واجبات كان إن جودنا يا ما أنت اللي لو جبه هي ما أنت markii ibxiray noo soo baxay markii rajadii soo baxday markii la yiri iftiin baa jira markii la yiri dayax baa soo iftiimay miyaynu noqonaynaa kuwa cagta saara miyaynu noqonaynaa kuwa ku noqda 20 sano ama 30 sano ay soo dhaafeen miyaynu noqon doonaa kuwa u xiisaynay digdaadiyaan miyaynu noqon doonaa inaynu noqono kuwa isku dambaaba miyaynu ku dafi doonaa wadada xaqda iyo horumarka war Allah subhanahu wa ta'ala xaqahayna waafajiyo ilaahu rabbiyo dalkayga badbaadi ilaahi haydin badbaadiyo xaqan haydin waafajiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.